hambalyeeyo dowladda Soomaaliya uu hogaaminayo President Xasan Maxamuud hogaaminayo inuu runtii soo doortay walaalkeen Xamse oo uu ka dhigay Prime Minister. hambalyada anigoo matalaya wakunta wajeer oo ka mid ah xildhibaanada jooga federaalka baarlamaanka Nairobi oo Kenya anigoo joogo waxaan halkan ka taminayaa hambalyo qaali ah oo 114 quraanka ku hareeraysan oo u taminayo walaalkeen Xamza oo inaga ka mid ah oo walaalkeen ii garab taagnaa anigana aan garab taaganahay runtii waxaa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaa Xamza waa walaalkeen qaali ah si gooni ah saaxiibo goonina waanahay tan iyo sanado aniga Xamza labada forood baanu nahay waxaanu doonaynaa inaad u hambalyaysaan aad caawa u ducaysaan inuu xilkaa ilaahay ku asturo xilkaa ilaahay u sahlo xilkaa isaga ilaahay u fududeeyo garabna waanu nahay garab ayaanu u nahay waan garab taaganahay waxaan kaloo u hambalyaynayaa madaxweynihii Jubbaland Axmed Madoobe oo dadaal muujiyey oo runtii dadaal weyn muujiyey oo aad u dadaalay isagana ilaahay ala garab galo runtii wuxuu muujiyey nin raba intuu dagaali lahaa runtii wuxuu muujiyey nin raba intuu garab uu noqon lahaa bulshadiisii maanta waanu isku masanaa xagga iyo xaggan labada indhood oo isku seexdaanahay oo kala seexan oo kala maarmin oo kala socon oo kala noqon oo runtii hal meela ku wada taagan habeen weeye maqrib weeye insha Allah